qaramada midooba ayaa ka fakaraysa jihada cusub ee ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya AMISOM kuwaasi oo 10 sano kadib waajahaya mustaqbal aan la hubin iyadoo ay Soomaaliya wali ka jirto xasilooni la'aan. xoghayaha guud ee qaramada midooba Antonio Guterres ayaa howlgeliyay guddi xaqiiqo raadin bishii Agostos ee la soo dhaafay si ay uga tala bixiyaan wadada loo mariyo 19,000 oo ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee haatan ku jira marxaladda ka bixitaanka Soomaaliya. sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday kooxda, Guterres wuxuu haystaa 3 wado oo ku saabsan hanaanka loo mariyo mustaqbalka AMISOM. qorshayaasha koowaad ee loo soo jeediyay waxaa ka mid ah in AMISOM lagu bedelo howlgalka UN taasoo xaqiijin doonta in howlgalka lagu helo maalgelin joogto ah. wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa si kala duwan ugu barooriyay UN-ka inay si buuxda ula wareegaan waajibaadka maalgelinta AMISOM iyadoo loo marayo golaha amniga ee qaramada midoobe oo leh waajibaadka guud ee ilaalinta nabadda adduunka. It's a simple message to Al-Shabaab. You either give him or we are coming for you.